waxaa daboolka laga qaaday dalka Soomaaliya toddobaadkan in dawladdu ay ka warheshay mu'aamarad niman ay wateen oo 7 nin oo sare oo madaxa oo militariga iyo rayidka ka tirsan dabeetool xidhxidhay sida hadalkaasi laga sii daayay Radio Muqdisho uu sheegay 7daas nin waxaa lagu ashtakeeyay in ay garabsanayeen oo la shaqaynayeen dawlad shisheeye oo inkastoo la magacaabin lagu sheegay in ay cadow u tahay ummadda Soomaalida 7 nin waxa ay kala yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee saddexaad Brigadier General Ismaaciil Cali Abakor wasiirkii caafimaadka Major General Umar Xaaji Maxamed gudoomiye ku-xigeenkii fadhiga baarlamaanka Umar Carte Qaalib wasiirkii hore ee warfaafinta Dr. Maxamed Aadan Sheekh nin hore uga madaxaan jiray golaha sare ee kacaanka Colonel Cusmaan Maxamed Jalle Maxamed Yuusuf Weerax oo ka tirsanaa guddiga dhexe ee xisbiga iyo Warsame Cali Faarax oo ka tirsanaa guddiga joogtada ah ee baarlamaanka si haddaba aanu u soo qaadno oo aanu wax uga sheegno dadka la xidhay iyo nimanka sare ee horay dawladda uga mid ahaan jiray iyo kuwa militariga ah iyo sababtii loo xidhay dadkaasi ayaa Cabdilaahi Xaaji oo ka tirsan laanta af Soomaaliga BBC-da waxaa telefoonka oo ku waraystay wasiirka maamulka iyo jaangooyada dalka Soomaaliya ee General Axmed Suleymaan Cabdalle oo iminkaas cadaal ku maraya caasimadda Talyaaniga magaalada Rome haddaba aan idinku wareejiyo Cabdilaahi Xaaji General Axmed Suleymaan Cabdalle waxaan ka waraystay dalka la sheegay in ay raggaasi la shaqaynayeen waxaanu magacaabay dhowr dal haddaba General Axmed Suleymaan inkastoo su'aalaha aan weydiiyay oo dhan uu ka wada jawaabay oo uu qaarkoodna si fidsan uga jawaabay haddana waxaa laga yaabaa in waraysigaasi oo aan telefoonka ku qabtay darteed hadalka qaarkii amba intiisa badanba aydan si wanaagsan u maqal ee sidaas raalli ku ahaada markaas anigoo waraysigaasi hore ka bilaabaya su'aasha ugu horeysa ee aan General Axmed Suleymaan weydiiyay waxay ahayd dalka uu Radio Muqdisho sheegay in ay nimankaasi taageerada ka helayeen waake waxaanu ku jawaabay ama toos ha ahaato ama gudub ha ahaato waxay la shaqaynayeen Ethiopia iyo Russia iyo Gaddafi iyo Cuba iyo wixii la halmaana ee kutubadaas ay halkaa ka soo jeeda General Axmed Suleymaan rag kale oo loo soo socdaa ma jiraan mase waa intaasun waxaan ogahay ma jiraan maxay ku dhacday in rag 13 sannadood ee kacaanku soo jiray la soo shaqeeyay dawladda in imika marxaladda ay Soomaaliya marayso xagga dhaqaalaha iyo siyaasadaba la qabqabto raggaas oo markaas xabsiga la geeyo maxay taasi ku dhacday waxa aan oran karaa waxay ku dhacday ma ay maqneen raggii ay kacaanka qaarkoodna soo wada dhaliyeen qaarkoodna muddada badan ay hawsha kacaanka ku wada jireen inay u dulqaateen inay la taliyeen markaan waxay noqotay xaaladoo qalafsan iyaga oo heerka duminaya kacaankii ka tanaasuli waayey yaa keentay markaa in tallaabadii maanta ay noqoto kamaaran waa in la qaado